sheekadan waxay nagu dhacday aniga iyo saaxiibkay xilli galab ah anagoo sii socnay guriga ayaa waxaynu ka aragnay wada aan socnay koofiyad meel taala. kadibna wiilka saaxiibkay ayaa igu dhahay bal ay koofiyadan sida ay u qurux badan tahay. aniga aad iyo aad baan ula yaabay sababtoo ah mana garan karin cidda meesha ugu tagtay koofiyada. kadibna saaxiibkay intaan ku yara qoslay ayuu koofiyada sidii ku soo qaatay. kadibna waxaan ku dhahay mar bal itus koofiyadan sida ay tahay. kadibna gacanta ayaan ku soo qabtay. aad iyo aad bay u qurux badnayd. ugu dambeyntii waxaan nimid guriga oo buug ayaan akhrisanayay. cabaar markaan buuga akhristay ayaan meel geesa koofiyada agteeda waxaan dhigay buugii aan akhrinay. xoogaa hurdo ayaa qabatay. sidii ayaan ku seexday oo indhahii ayaa isku qabtay. cabaar markii aan jiifay hal saac kadib waxaan dareemay in waxa ay qaqaylinayaan. mana garan karin waxaas waxa ay yihiin, laakiin waxaan dareemay dhanka koofiyada inay tahay. waana fahmi waayay mar sidee koofiyad yar oo qaylo ugu soo yeeri kara. aad iyo aad baan u fajacay oo qolka aan keligii ayaa jiifay. waxaan sameeyay waan garan waayay. mar sikadiis waxaan ku dareemay in koofiyada dhaqdhaqaaq ay leedahay. si dhaqsi leh ayaan sariirta u soo istaagay anigoo naxsan. weliba waxaan dareemayay in koofiyada wax dhaqdhaqaaq leh ay ka soo baxayaan. waxaan mar sikadiis ku arkay in wax lug camal ay ka soo baxayaan. kadibna qof bini aadan camal inuu ahaa. aad iyo aad baan u naxay oo cabaar wejigiisa waan fiirin waayay. ugu dambeyntii waxaan arkay lugu dhaadheer iyo gacmo ayuu lahaa. gacmihiisan waxay u ekaayeen gacmo qaliir ah oo cijo waaweyn leh. kadibna koofiyada ayaa wax walba ay ka soo baxayeen. waxaan isdhahay miyaad iriyoonaysaa? kadib waxaan xaqiiqsay in ay riyo ay ahayn. waxaan ay yihiin wax run ah. aad baan u qayliyey oo wixii koofiyada ka soo baxay gacan ayuu ugu soo taagay. waan iska celin waayey. kadibna gacantii markii cabaar ugu soo taagay waxaan isdhahay wuu ku qabtay. markaan waan fahmi waayey sida xaaladda ay ahayd markaas. waxaan marsikadiis ku arkay backgroundkii oo dhan uu madow noqday. anigoo dhan wax waan arki waayey. sidaan u qaylinayay saaxiibkay ayaa albaabka soo galay. wuxuu u weydiiyay xaaladda sida ay ahayd. kadibna markuu gudaha soo galay ayaa waxaan tusay koofiyada fiiri ayaan ku dhahay. ani waan sii jeeday. kadibna koofiyada sidii ayay ku soo laabatay. saaxiibkay waxna ma uusan arkaynin. cabaar intuu igu qoslay ayuu wuxuu dhahay orodoo seexo oo kaale aniga xataa aan kula seexdo. soo yara seexo wax dhib ah ma jiraan. saaxiibkay asagoo iyo la yar kaftamaya ayuu wuxuu dhahay sidaa miyaa fulay u egeed oo seexo kaale. laakiin waxaas way ka weyneyd cabsi iyo wax kale. waxay ahayd waxa weligaan arkin koofiyad yar siduu bini aadan ugu soo bixi karo. oo cabaar ayuu dadalmayay saaxiibkay. laakiin aniga hadalkiisoo dhan niyad ma aysan igu jirin oo waxaan weli indhahayga qabanayeen waxa koofiyada ka soo baxay in ay ahaayeen waxaan caadi ahayn. habeennimadkii annagana sidii ayaan ku seexday, asagana sidii ayuu ku seexday. maray ahayd 10 saac habeennimo ayaan waxaan arkay in saaxiibkay uu agteeda jiifo. laakiin si dhaqsi leh ayaan ku fiiriyey. markaan ilbadax ku fiiriyey ayaan waxaan arkay in saaxiibkay koofiyada ay kor saaran tahay. saacaduna waxay ahayd xilli dambe oo habeen ah. kadibna waxaan ku dhahay ma koofiyadii laga baqaya ayaa wejiga saaratay. wax dhaqdhaqaaqa ma uusan lahayn. laakiin markaan waxaan go'aansaday koofiyada inaan wejiga ka qaado. waxaan arkay waxaan weligaan arkin intaan noolaa. asaga ayaaba isku bedelay qofkii marka hore aan ka baqayay. aad iyo aad baan u naxay oo wuxuu la soo baxay ilka waaweyn iyo waaweyn. aniga dhan waan garan waayey. laakiin mar ayuu sikadiisi ugu soo fiiriyey. anoo cabsanayo oo qaylina ayaan isaga soo dhaqaaqay meesho idil. weliba gacan ayaan isaga xijinayay. kadibna waxaan arkay in koofiyadu iska siibay. isla asaga ayuu ahaa. wejigiisa camal ayuu yeeshay. dharkan ayuu qaadanayay. markaan koofiyada ayuu iska bixiyey. madax yaroo tima aan lahayn. kadibna koofiyada ayuu sidii ku gashtay. anigana waan baqay oo markaa ayaa ugu dambeysay wax ay dad leeyihiin in aan soo qaado. ninkaas haddaan aniga noqon lahaa maxaa igu dhici lahaa?